mahad maxamed salaad agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa oo weheliyo wiilka xaaska xasan sheekh maxamuud ay eedada u tahay ee lagu magacaabo aadan dheere ayaa maanta tiraba dhowr jeer isku dayay inay ku qanciyaan genaraal ibraahim taliyaha ciidanka xoogga dalka qaabka loo weerarayo guriga genaraal odowaa yuusuf raage iyagoo sheegay inay ka samaynayaan baaritaan la mid ah midka ay ka sameeyeen guryo siyaasiyiin iyo saraakiil iyo hoteello ay u daateen maanta oo la sheegay in boob iyo bililiqo ay ka geysteen balse genaraal ibraahim oo isku hayb yihiin genaraal odowaa yuusuf raage ayaa gebi ahaanba iska diiday waxuuna sheegay in weerarkaasi uusan ahayn mid suurogala tiraba 3 jeer ayaa la sheegay in mahad salaad iyo aadan dheere ay maanta la kulmeen genaraal ibraahim oo xoogga dalka hadda hogaamiya balse waxa uu ka goos adeegay in la weeraro genaraal odowaa yuusuf raage isagoo sheegay in ciidankiisu ay ka soo jeensanayaan dhinaca generaalka arrintan waxay si weyn uga caraysiisay mahad maxamed salaad oo waayadii dambe xasan sheekh maxamuud u muuqday in uu dadka ka hor keenayo iyo sidoo kale ninka lagu magacaabo aadan dheere oo isku tiriya inuu ka mid yahay carruurta xasan sheekh maadaama xaaskiisu ay eedo u tahay isaga oo rumaysan in xasan sheekh maxamuud uu warkiisa dhegaysanayo mahad salaad iyo aadan dheere oo aad u caraysan islamarkaana uu mahad afka ka ubrinayo ayaa la sheegay in villa soomaaliya ay ugu galeen xasan sheekh islamarkaana ay ka dalbadeen in gebi ahaanba xilka laga cayriyo genaraal ibraahim taliyaha ciidanka xoogga dalka labada nin waxay ku doodeen inuu hortaagan yahay baaritaanadii ay samayn lahaayeen iyo sidoo kale in si xooga ay gebi ahaanba hubka uga soo qaataan genaraal odowaa balse xasan sheekh ayaa u sheegay in generaalku uu haysto hub iyo sidoo kale awood ciidan oo aad u xooggan islamarkaana aysan jirin cid si toosa hadda u beegsan karta taasoo muujinaysa in si weyn marba marka ka dambaysa ay dhinacyadu uga fakarayaan wax kasta oo la xiriira qorshayaasha iyo sidoo kale go'aanada gaarka ah ee saamaynta ku yeelanaya iyadoo taas ay ka dhigayso in xasan sheekh maxamuud uu fahamsan yahay awoodda ciidan ee genaraal odowaa yuusuf raage sidoo kale shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ayaa waxa uu tegay guriga genaraal odowaa yuusuf raage xasan sheekh maxamuud ka sharci darrada ku fadhiya villa soomaaliya ayaa la sheegay in si toos ah uu taleefanka uga wacay shuute oo ku sugan guriga genaraal odowaa islamarkaana uu ka dalbaday in gebi ahaanba gurigaas uu ka soo baxo islamarkaana uu shaqooyinkiisa kala guto balse shuute oo si weyn u caraysan ayaa la sheegay in xasan sheekh uu sheegay inaysan cadda culays isaga ku lahayn haddii xilka laga qaadayo oo isagu uuba danaynaya hadda inuu iscasilo wuxuuna shuuta sheegay in isaga iyo genaraal odowaa yuusuf raage ay hal mid isku yihiin islamarkaana marka iyaga la laayo oo ay dhintaan kadib la baari doono gurigiisa taasoo muujinaysa xaaladdu inay hadda faraha ka sii baxayso sidoo kale dhinacyada ka amar qaata mahad salaad iyo aadan dheere ayaa waxaa ka mid ah macalin mahdi oo isagu ku magacaaban taliska qaybta ee gobolka banaadir ee booliska soomaaliyeed waxaana isaga oo jiidanaya dhowr gaari oo la sheegay inay isugu jiraan gaadiid ciidanka booliska iyo militariga soomaaliya ay leeyihiin uu geeyey gurigii uu ka soo guuray madaxweynihii 7aad ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed waxaana si toos ah halkaas sidoo kale loo geeyey hub ay leeyihiin ciidamada boolis military ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho halkaas ayaana hubka si toos ah uu macalin mahdi ugu sheegay inay ka qabsadeen madaxweyne Shariif oo dadka oo dhan marqaati ka ahaayeen markii waanwaanta iyo gorgortanka lagu dhameeyay xaaladda isaga iyo xasan sheekh ka dhaxaysa ugu dambeynna beesha caalamka odayaasha dhaqanka iyo saraakiil ay horkacayeen genaraal ibraahim oo xoogga dalka ay shuute ay si toos ugu qanciyeen in gebi ahaanba uu ka soo baxo gurigaas islamarkaana la gudagalo sidii looga wada hadli lahaa arrimaha siyaasadda tani waxay noqotay ceeb weyn oo dul hoganaysa xasan sheekh maxamuud oo kooxdiisu maanta ay u daateen guryo ay leeyihiin siyaasiyiin ganacsato iyo dad shacaba waxaana ka mid ah hoteelka elet ee uu leeyahay ninka lagu magacaabo cabdullaahi maxamed nuur guriga madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen guriga taliyihii hore ee nise ee gobolka banaadir warbac iyo sidoo kale guryo kale oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee muqdisho